هاي قبلها حتى هي قصرنا هاي حاضرة واستيعابها هاي iskudaygii taariikhda markay ka dhacday iskudaygii ay soo sameeyeen nimanka burcada ee gaxsada al-shabaab xadkana la wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya kala wadaagno deegaankeena uu la wadaago iskuday ayay ka sameeyeen iskudaygaas oo fashilmay qayb kamida waxa weeyaan harihii aan ku lahayn xadka ayay iskuday ku sameeyeen laakiin waa fashilnay anna hadda waxaan kala hadlayaa qowlaha aata oo xadka kala wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya kala wadaagno فجر بيو بيان قرقة قاعدة على الشباب وحي شيطان واحد صغير ويا وحبير ويا وحلا كتير وحي ترك كل رجال قاعدة عالم كا أجل هو كريان ويا وحات أنا هذا أتايا قال هذا ياجي جتنا وجوجنا أتنا أنا جوجنا هي قديها قاعدة فصونا حالة الناس عم بيمرها أول يفوق الدولة يا الشباب هذا كفرطة ودولة إثيوبيا جلنا إثيوبيا ديها كايماتا خسارة يجربوا كتمرها وأورو أرجعسوا وحاولوا العالم كله وتغذية وقربوا كذا وحاولوا أيوة استطيع يتغير وافشلوا ويسامح كل شيء. isagoo weerarkii al-shabaab ku qaaday tariyaha ku yaala saddexdaas tuulo ee xuduudda dhaca waxa maalmihii la soo dhaafay uu dagaal ku dhaxmaray iyaga iyo ciidamada liyu booliska qabalaha hulul ee gobolka Afdheer tayo ku-xigeenka ayaa dhinacooda sheegay inay guul ka gaareen dagaalka gudaha qayb soo gashay waxa weeyaan dhamaan waxa ka gudbay 15 gaari ma ka gudbay oo hulul waxa weeyaan midrigaada gobolka Afdheer ee garaaciidanku ku dayrayahay sida kasta waa ka taaganahay baaqoodii waa after insha Allah ilaa after oo shaqarna oo jaro qabalaha hulul weeyaan tanka ciidanka ayaa ka taagan qaybtooda way isdhiibeen waa niman shaqo weeyaan oo meel kasta ciidanka deegaanka ayaa ka taagan oo soo afjarayna weeyaan waxa ay caqabad saasala oo ama culaysaasana ma jiraan waa wax hadda soo afjarayno waa ka haynaa ee meesha ciidanku jooga maxaabiistii ayo waxa weeyaan daawacoodii halkaas ayaan ku haynaa hulul baan ku haynaa dhibashada dhankooda ilaa hadda waxa weeyaan 150 dhibashada hadda kor dhankooda way jirtaa ilaa 150 xubnood oo dhibasha hadda ciidanku ka taagan yahay oo aagu waxa weeye hadda iyaga uu ka socday maxaabiis fara badanna way jirtaa waa tahay dhanka ciidanka deegaanka maxaa khasaare ka soo gaaray dagaaladan soconay خسارة ولا بو يريها خسارة نوكا إنه مادام إنه دياك إنيهاي وإنه أولياء العيدة العبيثان والدولين لأنهاي وحنا الجبهات عند قرآن والجنودية أي تهاي خسارة قاسي مجبه إنه قاعد دور في عنهاي وخسارة وهذا قاسي مجبه ويان sidoo kale taliye ku-xigeenka ciidanka liyu booliska dowladdeegaanka Soomaalida ayaan weydiiyay waxa xilligan keenay in kooxda ay gudaha u soo galaan deegaanka ila ka hor degmada ayal kariya kabaadiyada qaybaha ay soo galiyeen oo jabalan soo galiyeen ayaa ku soo shaqeeyay hubbiye saar badan ka qaadnay walaal waxa weeyaan nimankan waa cadawga bini'aadamka weeyaan waa niman argagixisaan oo caalamka argagixisaka isudagooda iyo jabadnimadooda iyo laantooda waa wax ka jira weeyaan oo inta badan caalamka laga yaqaano waxaad ogtahay in hadda ka hor deegaanka gaasanaasa iyo khadaraha gobolka Afdheer isku dayaa ay ka soo sameeyeen oo darbaha ku dhufatay sida la xasigeeyay cadawgu barkataanba waxana waa gudaha Itoobiya maadaama hadda ka hor ayna soo gelin isku day ay sameeyeen ayaa jira oo bilii hore fashilinay kana kiiyun buu daba socdaa isku day aan u suuroobaynin nimanka taan ognahay maadaama dalka Kenya iyo Soomaaliya ay caqabado ku hayaan gudahooda oo ay dagaal ka wadaan sida mid dagaalada mid la mid ay rabaan gudaha Soomaaliya ay gudaha Itoobiya ka sameeyaan oo mar suuragalayo waa mid ka diyaar garoobay isku dayadoodii way ay dalka aan dalkanahay ay ka wadeen mid kamid ah bay rabeen inay inaga khiyaamada ay soo galiyaan waana ka diyaar garoobay weeyaan ugu dambeyn taliye ku-xigeenka ciidanka liyu booliska dowladdeegaanka Soomaalida Zakariya Cabdi Khaliif ayaa sheegay in xilligan ay u diyaar garoobeen in al-shabaab ay kula dagaalamaan gudaha Soomaaliya halkan ka hadlayo aafad gudahaan xadka deegaanku uu xiran yahay xaaladuna meel fiican ayay maraysaa isku dayana waxa weeyaan iyo qaraxyadan iyo cadaawadan ururka argagixisada al-shabaabna waxa weeyaan saan rajaynayna waxa weeyaan waxaan rabnaa halkay joogaan inaan ugu tarno oo inta gudaha Soomaaliya ay dhibayaan caqabadaha ay ku hayaan inaan kaabaga aan deriska ka nahay inaan ka xoreyno ayaan rabnaa oo qorshasan ciidanka gudaha Soomaaliya ayuu galay oo waxa weeyaan qaybo kamid ah gudaha Soomaaliya ayaan u talawray oo ay fadhiyeen oo guud ahaan xadka meelaha ay ka soo dhawaadaan ka saaray
inkastoo taliyuhu uu sheegay in howlgalkan la soo gabagabayn doono saacado kooban kadib haddana waxaa adag in la ogaado khasaaraha ka dhashay dagaalkan maadaama ayna isgaarsiin ka jirin goobaha dagaalku ka socdo ma aha markii ugu horreysay ee weerar noocan oo kaleha al-shabaab ay ku qaadaan deegaanadani dhaca xuduudka dalka Itoobiya iyo Soomaaliya ee tuulooyinka Yeed, Aato iyo Washaaqo balse sanadkii 2014 ayay sidan oo kale weerar dhimasho badan sababay ku qaadeen kooxda al-shabaab